السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaheyna ku xiran janaalkeena xogaha media waad mahadsantihiin sida aad noo support gareysaan oo noo taageertaan mar walbo. maanta barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa arrin murugo leh oo ka taagan dalka Soomaaliya. arrintaas oo ah fatahaadaha iyo dhibaatada ka socdo magaalada Beledweyne iyo magaalada Bardaale oo ay u daran tahay magaalada Beledweyne. mar walbo oo musiibo dhacdo إلهي سبحانه وتعالى دنبي أنا أنقلنا إلى نوع عقابيا حنا ونكسر مرول بينام كتوبة كنا دنبي ذا سجع سي أيسن ولا له نكلته أو ببعتونين ولا له نرى بلدوينة أفرتي حافظات أي كم من مجالات بلدوينة وأي كقحان حيدقين هين مالك بحسن مجالات أيجو أو كرفات عن هالكاس مجالات بلدوينة ومجالات دخالة iyo beero iyo dhul wanaagsan mar walbana waxay nooga baahan tahay inaan u gurmano oo aan ka saacino wixii dhib ah ee soo gaaray ayaga. ilaahay baa ka dulqaadi karo, laakiin anaga waxaan uga baahan yahay oo kaliya inaan garab istaagno oo aan marakaneecada, cuntada, cabitaanka, dharka, hugashada iyo wax walba oo daruuri u ah nolosha bini'aadamka inaan siino. markii koobaad maahan, markii labaad maahan, markii saddexaadna maahan, tiro ku dhow ilaa iyo 10 jeer ayaa la sheegay inay sidaan oo kale biyo ugu soo fataheen magaalada Beledweyne. dhibaatada degmadan haysato waxa waa biyo baxadii lixaad oo aan dhex taaganahay. nasiibna ilaahay ii siiyey inaan ka tagin kana dhiman ee aan dhex joogo ummadda. biyahan sidoodaba waxa ka faa'iideysto dad yar oo doora leh ayaa ka faa'iideysta. magaaladan waa laga xiri karaa. hadda biyahan baxaya haddaan wax idinkaga sheego ummadda Soomaaliyeed oo muuqaalkayga iyo magacayga taqaano, haddaan wax yar u faahfaahiyo waxa weeye hadda maanta haddeedii kale ayaa roob u dambaysay. biyahan midda labaad dabayl lama socoto oo overwind ma aha. biyahan buuraha magaalada dhinacyadeeda bariga jiro ama galbeedkeeda jiro biyo ay soo rogeenna ma aha. webiga hadda wuxuu bannaanay 75 sentimitir ayuu wuxuu lahay jaw cirifyo ah. waxaa jira meelo laga xiray markii ugu horreysay biyo baxadii abriil baxsatay 98 kadib meelo laga xiray ay magaaladu biyaheeda ka fatahayeen. dadana gaara leh ayaa biyahaas magaalada ku furay. ma garanayo danta ay ka leeyihiin. afarta xaafadood afar buusishina laga xiray oo low shallow level ahayd waana la gooyey. arrintaas markaan u xuuraansadayeen hoos u xuuraansaday waxaa caddaatay niman ganacsato ah oo deeqaha ummaddaas la siiya ka faa'iidaysato inay biyahaas ciyaal u direen masaakiin ah. waxaa laga jaray meesha la yidhaahdo buulaxaabley waa laga jaray. buulaxaabley maaha inay xaawataaka waa laga jaray. agaraar iyo beerta liyaa bundaweyn waa laga jaray. kabxanka abagado waa laga jaray. kabxanka abadagaal waa laga jaray. magaaladana webiga ayaa ka korreey magaalada hooseyso. biyahaas aad arkaysaan lama socoto dabayl, lamana socdo roob da'ayo. waa dad dan gaara leh ee doonaya inay ku dawarsadaan ama wixii masaakiinta ay caalamka ay u keeneen inay ganacsi geliyaan rabo ayaa hadda biyahan magaalada hadda u sababay. nasiib darradana haysata marka waxa waaye nasiib darrada gobolkaana haysata waxa waaye dad danta gaar iyo danta guud u fikira ma joogaan. dawladda dhexe waxaan u sheegayaa kolley ummaddan way u gurmanaysaa. waan maqlaya ra'iisul wasaaraha warkiisa waan maqlay. wasiirada uu magacaabayna waan maqlay inaysan la tashan maamul meeshaan joogo, oday meeshaan joogo iyo madax Hirshabeelle ka timid oo madaxweynaha u weeyahay inaysan la tashan ee waxay ummaddaas siinayaan buuraha korkooda oo labada dhinac magaalada inay ku siiyaan. ma jiro. dadka waxaan samaynaa waa dad ganacsi oo dana gaarana dalka kale. magaalada Beledweyne waxaa mara webiga Shabeelle oo ah webi aad u dheer, webiga labaad ee Soomaaliya ah, kana imaada Ethiopia. webigan waa webi ka sareeya dhulka joog sarana ku socdo
markii ay biyo roob da'aana haddii aysan badnayn xitaa waa u fatahaa. sidaan oo kaleeto waxaa jirtay magaalo ku taala Bakistan oo la dhihi jiray Mohenjo-daro. waa magaalo ku taallay Bakistan qarnigii 19aad ilaa 4 jeer ayay biyo kusoo fataheen. markii ugu dambeysay magaaladoo dhan ayay biyihii qarqiyeen. waxaa la sheegay dadkii ku noolaa magaaladaas dhammaantood inay ka hoos mareen biyaha ilaa 95% guryihii iyo dadkiiba biyaha ay ka hoos mareen ayaa la leeyahay. kadibna hadda wax dega ma lahan, taariikhdana sidaas ay uga baxday. haddii aanan musiibadan taagan aanan iska caawinin oo aanan iska garab istaagin oo aanan walaalaheena reer beledweyne iyo reer bardaalaba aanan saacidin, maantayto aanan kaalmaynin, berri musiibadaas Soomaaliya meeshay u badan tahay webi baa maro inay dhacdaa macquul ah. sideen isku saacidi karnaa? aniga biyo iskama celin karno, laakiin ugu yaraan waxaa la yidhi biyo intaysan soo gaarin ayaa la iska muusaa. walaalaheena caawinaad ayay naga rabaan, dhammaanteen aan is caawinno, aan isgarab istaagno. waa murugsannahay, waan la dareemaynaa walaalaheena xanuunka, laakiin walaalaheena xanuun aan kala dareenna qalbiga oo keliyata maantayto uma baahno. waxay u baahan yihiin ficil, hadal iyo kaalmo dhammaystiran. dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaad videogan sii share garaysaan oo asxaabtiin u geysaan, aan bal qaar ka mid ah la daawataan